بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن داوديال kusoo dhawaada toddobaad kale ee barnaamijkeennii dhalinyarada waanu inta badan ku falanqeynaa arrimaha dhalinyarada quseeya Soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo inta meelood ee afka Soomaaliga looga hadlo annagu ka tarjumayna inta badan dareenka iyo dhalinyarada waxyaalaha ku kaydsan si aanu dibadda ugu soo saarno si ay bulshada Soomaaliyeed ay u maqlaan codka dhalinyarada toddobaadkan waxaanu idin haynaa barnaamij aad u xiiso badan oo aan filayno dabcan inaad ka faa'iidi doontaan macluumaad aad u tiro badan oo aanu ugu magac darnay ciwaankiisa dhalinyarada iyo wadaniyada mar walba ay ereyga wadani uu ku soo dhaco qalbigeena ama dhagihiinana waxaan xasuusan karnaa in aad dareemaysaan qiimaha wadaniyadu ay leedahay toddobaadkan waxaa barnaamijka igu martiyam cali ismaaciil cali iidle oo fadhiya dhinacayga bidixda iyo ifraax cali boobe oo fadhida dhinacayga midigta cali iyo ifraax ku soo dhawaada TV-ga ETN iyo barnaamijka dhalinyarada su-aasha ugu horeysa oo toddobaadkan aan rabay inaan idin weydiiyo waxay tahay cali maadaama aad tahay nin dhalinyara oo arrimaha dhalinyaradana aad ugu dhex jira dabcan aad tahay nin hal abuur ah oo dhalinyarada dhinaca hal abuurka uga jira dhaqanka iyo wadaniyada maxaa ka dhexeeya baad u malaynaysaa xiriirka ay leeyihiin dhaqanka Soomaalida iyo wadaniyadu waa nooc ma bismillaahir rahmaanir rahiim horta wadaniyadu waa wax qaaliya waxana fahamsan moogta qofkii aqli leh wax imiteedo la iska yeeli karana ma aha waxa weeyaan waa wax loo dhashaa dhaqankuna wuxuu ka bund yahay waxyaabaha qofka muujiya traditionalkiisa iyo caadadiisa iyo wadaniyadiisa qaabka labiskiisa qaabka dhaqankiisa qaabka ficilkiisa iyo wax walba markaas dhaqanka iyo wadaniyadu waxa la isku waafajin karaa qofku marka ay isaga muwaadinimadu ay qalbigiisa ku jirto ee ay ka muuqato ee qowlkiisa iyo ficilkiisaba ay ka muuqato marka inta badan horta Soomaali markaynu ka hadalno dhalinyaradeedu lama oran karo wadaniyad bay leedahay waa mujtamac Soomaalidu mujtamac kasta oo ay dhex galaan way ku milmaan haday North America tagaan Europe Australia meel kasta waxa way mujtamacaas bay ku milmaan oo dhaqan u gaar ah oo ay leeyihiin oo dhaqankoodii ay soo bandhigayaan oo ma garanaysaa ay ka muuqanaya ma jiraan waa taqliid racma waxa sida meesha waxay kaga dhigayaan moogtahay Soomaalida oran jirtay hadii aad gasho meel lagu cawaraya waa la cawaraa marka mustaqbal bilaadanka kale oo dhan hadii carab tahay hadii hindi tahay hadii Pakistan tahay cid kasta waxay leedahay dhaqan iyo caadad lagu yaqaano oo xad qaabkii u labistaan dhaqankooda aad bay u adag yihiin sida ay u labisanayaan sida ay u soconayaan facaa'ilkooda waxyaabaha ay qabanayaan waxyaabaha ay guryaha dhiganayaan ee maganaysa ay guryaha ku sharaxanayaan waa dhaqan ay iyagu leeyihiin mid ay iskaga cid ka moogtay ku bigareynaya kaga dayanayaan ma jirto marka anigu dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa dhaqan baad leedihiin wadaniyadu hay'ad ka muuqato dhaqanku hay'ad ka muuqdo caadad baad leedihiin hagoonina oo maganaysa dhaqankeena iyo wadaniyaduna hay'ad ka muuqdo tan aanu u sheegana dhalinyarada aanu kula hadlayno kulli waynu u soo noqon doonaa haye ifraax maadaama aad tahay gabar Soomaaliyeed dabcan waxaad ka turjumaysaa haykalka guud ee haweenka Soomaaliyeed ee telefishinka inaga daawanaya ama inaga socda hawada dumarku Soomaaliyeed waan ognahay dhinaca wadaniyada runtii kuma liita marka bal ka waran adiga heerkeebay isla marayaan baad u malaynaysaa dumarka Soomaaliyeed iyo wadaniyadu dumarku wallahi wadaniyadoodu aad bay u weyn tahay markastana ragga way ku dhiirigeliyaan in wadankeena nabad laga dhigo laakiin ragga ayaa ka soo horjeeda mid kastana kursi buu raadinayaa shacabkana waxaan suuqayaan mid kale waxa bay dumarku is weydiinayaan nimankan kursiga u ordaya haddii ay kursi helaan shacabkiina mariyaan bal ay xukumayaan ay dul maran ku saaraan wallahi dumarku way fiican yihiin laakiin daragoodan dad jiraan maxaa la sameeyaa waa gartayeen ifraax maadaama aad tahay qof hal abuur ah dumarkii wadaniyadeeda adigoo shucuurtaada iyo dareenka sidaad u dareentay ku cabiraya waxa ma ka tiri dhowr aad buraanbur iyo baan ka tiriyay gaaraarada hadda waxaan ku hormarayaa gaaraar Soomaalidan caydiga ah Soomaalidan caydiga aqligu ka cilaalayay culaada dan moodayay cadaabta u yaacayo nabad waa cayn gobeed ama culus oo irmaan warcaanaha laga cabaa carabku u macaansada cisiye sharafkaan lahay ragow idinka cakiray cidhiidhina geliyayo calankii naga dibdhigay calankeenii cawaalana cadhow la gunuunaca sidii aad cadaawe iyo cid kale aad la diriraysaan maxaad isu cidhib jirteen boqnaha isu goynaysaan
soomaali ciqaabtan iyo waa maxay ceeriyaamadani urhoy cadalkay ka baqa nabadda cilaamiyo colaadaha soo afjara aad baa u mahadsan tahay ifrax inkastoo aad moodayseed inaad raggii xoogaa ku yara durtay ma hadalkaagu wuxuu dhacayaa wadaniyadu dhinacii ragga bay hoos uga socotaa dumarku waa wadani waxna ma sameeyaan nabadana way jecelin waxa dhibka wadaa waa ragun cali waad u jeedaayo xoogaa waxaad moodaysaa raggii in lagu dhaliilay dhinacii wadaniyadu inay iyaga ka socon lahayn dabcan taas u geli mayno dee koley soomaali waa u waadax wixii beesha ka jira marka waxaan rabaa inaan su-aal kale ku weydiiyo wadaniyadu sideedaba ama wadaninimada sidaad sharaxaadii hore inaga siisay waa shay marna kor u kaca marna hoos u dhaca bal haddaynu ku horumarno waxyaalaha wadaniyada kor u qaadaa adiga ka ra'yi ahaan ka cali ahaan ka halabuur ahaan maxaad macnaha ka arrintaas ka odhan lahayd horta wadaniyada waa shay qaaliya waxaana kor u qaada wadajir iyo gacmaha in laysqabsado iyo caqli fiyo iyo calool furan in dhallinyaradu ay ku wada shaqayso dhallinyaradu inay iskaashadaan dhallinyaradu inay waxaan ku yiri ay iswacyigeliyaan isu yimaadaan mar walba miitinada iyo kulanada sameeyaan ka wada hadlaan wadaniyadooda iyo sidii moogtahay wadankii haykalkiisii iyo dowladnimo iyo wanaagiisii loo soo celin lahaa ganasta mujtamaca xaaladan cakiran ee iminka ay ku jiraan looga saar lahaa marka wadaniyada inta badan waxaa kor u qaada dhallinyarada waa mujtamaca hormuudkiisa bulshada lafdhabarta mujtamaca waxa weeye waa dhallinyaradu haddii ay iska seexato oo ay moogtahay xilkoodii ay kasoo bixi waayaan oo waajibaadka saaran ay fahmi waayaan mujtamacaasoo dhan wada way iska burburayaan waa dadku intaas ka nool yahay dhigii baa ku yaalla indhii baa ku yaalla sankii baa ku yaalla dhallinyaraduna mujtamaca waa madaxoodii marka waxaan leeyahay dhallinyaradu waxyaabaha kale wadaniyada kor u qaada waxa weeye wadaniyada in la ilaaliyo environmentiga iyo dhirta la gubayo iyo la ilaaliyo in ma garanaysaa ugaadha oo kale in la ilaaliyo waxyaabaha wadaniyadu waxa weeye wax marka aad wadankaagii wax meel hoose laga soo bilaabo oo moogta qof waliba uu meeshiisa uu xil iska saaro wax qof kaliya uu leeyahay oo looga dambeynaya ama madax khusaysa ama odayaal ama mujtamaca maganaysa madax dhaqameedka maaha qof kasta rag iyo dumar saqiir iyo kabiir rool iyo caruur wadaniyadu waa wax inay wada ilaashadaan muqadaska waxaana kor u qaada in dadku ay caqli furan caqli fayo iyo calool furan ku wada shaqaysaan danta guud ee qarankana laga hormariyo qabiilka qof walba shakhsiyadiisa iyo qabaa'ilkiisa waxaanu eegin la eegto qarannimada iyo wadaniyada mar walba laga wada tashado halka qabiil loo tashanayo halka ganacsi loo tashanayo wax walba in moogtahay haanigunta ka dulantaa bay tale Soomaalidu marka dhallinyaradana waxaan ku gugaaminayaa waa tuu Allah naxariista xaajada afqalooc baa waxla haduu geed angago xaabada laga idleystaa mid yaro intiisa baa soo awal baxay isaga anfaaciga hadhkiya oo dakaafiya reerkana haduu odaygu baxo iyo islaantiisa ubadkooda horaba tabco aayatin hala odayo inamiya hablaaba waxaa tiin aarankaa kacay axadkii kaslaani sabab abidkii weeyaan qofku haddaanu caqli shaqeeyo lahayn weligii faqri unbuu ahaanaya ummaddan shabaabkeedu hanuuno ayaan xumo marka waxaan leeyahay ka kaca dhallinyarooy wadaniyada muujiya dhaqankeena ilaashada diinteena ilaashada nabadda ka shaqeeya iswacyigeliya kulamada badiya qaadkan iyo isboortigan iyo waxyaabahan idin wareeriye ka taga waxyaabaha soo dhan ayaa moogtay dhallinyarada waqtiga ka lumanaya marka wadaniyada waxa kor u qaadaya waxa weeye wax isku xidhnaanta waa runta cali waa dabcan ereyga abwaanka iyo haddii xajaadan afqaloc runtii tixdaasi waa gabay aada u weynaayo waxyaalaha soomaalidu markay soo qaadanayso dhinaca wadaniyadoo kale loo soo qaatay iyo dhiirigelinta dhallinyarada buu ahaa waxaad moodaa dhallinyarada soomaaliyeed sidii dowladdii dhexe markii ay ka baxday meesha 1991 soomaali inta wadankii Soomaaliya oo weynaa wada joogta waxaad moodaa dhallinyaradii inay camal la-aani soo baxday soo food saartay waxbarashadii ay hoos u dhacday maxaad u malaynaysaa marka dhallinyaradii maadaama xilli adag lasoo maray kaalinteeba iyaga laga filayay in ay dhallinyaradu ku yeeshaan waxaad arkaysaa dhallinyaradii iska fadhi ku dirirayo haddii la kurayo odayaashii iska dhageysanayo meelaha lagu qaxweeyo dhoobano waxbarashadii iyo shaqadii iyo waxaasoo dhan kasoo jeestay marka taasi soo dhallinyaradii wadanku haddii ay sidaa tahay soo hadhow mustaqbalkii wadanka saameyn weyn ku yeelan mayso dabcan way ku yeelanaysaa si insaafa markay noo hadallo horta shaqada waa la abuuray marka dhalinyaro meel iska fadhida uun baad maxaan ka shaqeeyaa bay ku oranayaan waxa weeye mahmaaba waxa loo roome maalin kaliya laguma dhisin dafan daaraha dhaadheer iyo waxaan Yurub ay arkayaan waxaan oo dhan dad ba u tabcaday dafanta
imika saxaarayaal baa webi laga jeexay shaqadana waa la abuuraa qofka bini-aadanka ay markuu daaqadiisa iyo maskaxdiisa ka faa'iidaysanaya ee uu dareensan yahay inuu wax qaban karaa laakiin hadduu bahdilan yahay oo qof dee bilaa kalsooniya yaho shaqaysan kari maysid wadankiinu shaqa malacaanka wadanka hees baan waxaan ka maqli jiray ilaacaddii radio hargeysa calool baahanay cunto waad rabtaa cirweyniyo hurdana caadaysatay ciid iyo biyaad cidhif taagantae cudud beeratiya caqli moo qabtaa cimriga adigu qof calaa cashi wuxuu ku cayimay kuma cilbaxdide cawradaada dido carshuuraadka iyo caawimadada ceeb iyo hadday ceyb kula galeen ceel kuma dhaqay cawradaada dido markaa taas waxay ka hadlaysaa waxaad arkaysaa wadaniyadu sida u dhimatay magaalo iyo qashinka ka buuxsamay markaa maxaad siga qaadi weyn hay-ad baa noo imanayso naga qaadaysa waa bahdilmeyn moogtahay marka oday ibraahim xabsi la yaraada wuxuu arkay nin xoog weyn danan maalmaha yar kusoo qaato oo geeloodu hori jiray moogtahay markaa mu aaminsanayn inuu geela waraabin karo geelooda rag baa loo karin jiray markuu ceelka dugub la yimaado waraabin jiray ninkani markaa wuu bahdilan yahay oo xooggiisan inuu geela ku waraabin karo adoo shakadaada wataa ceelka duguble dad badan baan wada garanayn duguble adigu wuxuu ku yaala celifin buu u dhow yahay iyo xudun buu udhexeeya mogta marka isagoo geeli horaya oday ibraahim xarsi la yaala war maxaad geela horaysaa adigu wax uga waraabin weyday intuu 5 dhigood ku dhuftay biraa gal ceelka waana laysqooyahay ceelkiibuu galay wadaami cawlkaaba xaggana ka fiklayay wuu yaabay moogtahay markaas wixii xilligaa ka dambeeyay isagaa gooleydii waraabiyey moogtahay marka waxa waliba waa niyadda haddaad istiraahdo adigu waxba qaban kari maysid haddaad tiraahdo shaqaysan kari maysid haddaad istiraahdo waxba baran kari maysid sidaasun baad ahanaysaa laakiin haddaad dadaasho oo aad ku fikirto inaad wadankaaga wax u qabato oo aad wadaniyad muujiso oo wax u soo kordhiso adigu shaqaysato oo aad wax barato wadankeena shaqaa taala wadan macdan iyo wax walba waa ku jiraan waa laga shaqaysan karaa waxa sida la leeyahay ciid iyo biyaad cidhif taagan tahay waa ciiddii oo hodana biyihii iyo durduradii baa is celinaya